guddoomiyihii hore ee dhalinyarada ee gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaridka ah ee u ciid mudana Maxamed Ciise Cabdullaahi Maxamed Casi oo kamid ah dhalinta haatan siyaasadda ugu firfircoon isla mar ahaantaana muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda Bayern Munich ee dalka Germany ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay subaxnimadii saaka kaga hadlay xaaladda caafimaad darro ee la soo daristay isla mar ahaantaana uu ku sugan yahay siyaasi Cali Sandulle oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaalad xanuun u jiifay cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa waxaana ugu horreyntii guddoomiyihii hore ee dhalinyarada ee gobolka Togdheer ee xisbiga u ciid Maxamed Casi u rajeeyay caafimaad inuu ilaahay siiyo siyaasi Cali Sandulle isagoona mid iyo laba ka taabtay taariikhda mugga weyn leh ee uu siyaasigu ku leeyahay jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland haddaba isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisii sida tan ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bishii 2018 maalin sabti ah waxaan doonayaa inaan ka hadlo 3 qodob biidhnillaahi tacaala shirkeygan jaraa'id maanta wuxuu daaran yahay siyaasiga qaaliga ah ee ku xanuunsanaya Somaliland Cali Sandulle wato waxaan leeyahay marka hore ummadda islaamka meel kasta joogaan faatixada u martaan siyaasiga qaaliga Cali Sandulle in ilaahay caafiyo oo caafimaad degdeg ah siiyo Cali Sandulle oo shakhsiyan si fiican u aqaano leeyahay taariikhdiisa dadka taariikhda qorta taariikhda ka sheekeyn doonta laakiin haddaan mid idinka xasuusiyo Cali Sandulle wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay isbaray jamhuuriyadda Somaliland gobolada bariga dhammaan hadday yihiin Laascaanood iyo Buuhoodle iyo ereyada u dhow dhan siyaasiga waxaa laysoo sheegay iyo laysoo xaqiijiyay inuu xaalad caafimaad darro ama xanuun oo haya dartii uu joogo magaalada Hargeysa oo xanuun ku hayo waxaan leeyahay horta mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay ha ku caafiyo isaga cayladiisa iyo faamiligiisa waan salaamayaa dhanka kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa baaqu diray madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ugu baaqay in siyaasiga lala garab istaago hiil iyo hooba waxaana uu yiri gudoomiyuhu sida tan waxaan kalaan jecelahay inaan dardaaran u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah gadhowdeenka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay madaxweyne Muuse adiga dalka ugu sareeya maanta siyaasiga qaaliga xanuunsanaya sidii ugu fiicneed ama waajibaadkii ugu fiicnaa loola tacaamuli karo siyaasiga inaad la tacaamishaan baan jecelahay aad u salaamaya ummadda jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay wixii dhiba sharci naga hayo isku soo wada duuba guddoomiyihii hore ee dhalinyarada ee gobolka Togdheer ee xisbiga u ciid Maxamed Casi ayaan muddooyinkii u dambeeyay wareysiyaasiin kana soo muuqan warbaahinta maxalliga ah Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamka Somali Cable Burco.